geerina xatin ilaa ayaa runtii nagu timid axmed ilaahay oo u naxariisto nin ehel khayra ayuu ahaa aniga waxaan isbaranay 1963dii annagoo yaryar 67diinaas wuxuu ku soo beeray fanaaniintii maxaa tiraahdaa waa beri ma jirin markaas raadi muqdisho iyo raadi hargeysa iyo kooxdii xoogga saddexdaas aniga kooxda xooggan ka socday xaggeeda waxaan dhihi lahaa axmedna raadi muqdisho ka socday waa beriyaa loo bixiyey markii hargeysa iyo xamar iyo kooxdii waa beri laysku daray waa beri loo bixiyey marka dadkii waaba dhinteen badankoodii in yaraa ka nool ilaahay jannadaha geeya axmed waa geeri naxtin leh nin fanaan oo fiican si fiican u sheekeeya wanaagsan dadku jeceliin miisig waa ahaa laxan sameeye wuu ahaa agtarna wuu ahaa riwaayadaha uu jili jiray shabeelnaagoodtasaa wax ka jiray marka ilaahay u naxariisto ninkaan axmed cali ciraaq halkan tacsi tiiraaya la uga daraynaa awlaadii uu ka tegey wiilal iyo gabdho waxaan ilaahay uga baryaynaa samir iyo iimaan waxa weeyaan waa dow la wada marayo waalidiintayaa maray isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa jannooyinka ta ugu sarreysa inuu ilaahay subxaana watacaala aqal uga yeelo adeerkay salaad darbi taariikhda ka sheekeey kama sheekeyn karo laakiin waxaan anigu intaan aqaanay ku soo agaraadaystay wuxuu ahaa waalid wuxuu ahaa walaal buu ahaa abwaaniintii iyo fanaaniintiisii wuxuu ahaa qof sadiiqa oo ummadda u naxariista wuxuu ahaa qof intayadii yaryareedna jidka toosanna tusayoo lahaa fanku sidan maaha sidan weeyaan wuxuu ahaa tilmaame wuxuu ahaa tusaale wuxuu ahaa qof ummadda Soomaaliyeed maanta si weyn ay u dareentay ka bixitaankiisa waxaan ilaahay uga baryaynaa annaga iyo intii uu ka tagay iyo ummadda Soomaaliyeed meel bay ku sugayiin basamiriye iimaan ilaahay ka saadaqa ka siiyo dhammaan ehelku ka tagay faamilka iyo saaxiibo iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan laki baan u ahayn nasiib baa noo ahayd inuu magaaladan la joogay 30 sano u dambeeyay oo axmed uu noqday odayaasha community-ga degmadeeda ayuu ku noolaa degmadeeda ayuu deganaa wuxuuna ahaa ma aragtay mar walba ninka aad ugu dadaalo dhowr jeer aan isla kulmanay hidiyo dhaqanka iyo dhalinyarada hadda soo kacaysa ku dadaalkeeda sidii loo wada lahaa dhaqankeena annagoo joogna dalkeena maanta ka fog marka waxaan uga tacsiyanayaa dhammaan ummadda Soomaalida oo dhan af Soomaaliya ku hadasha geerida ku timid axmed cali cigaal ilaahay jannada ha geeyo ilaahay dambigiisa ha dhaafo ummadda iyo faamilka hoose uu ka tagayna samir iyo iimaan iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan